waxaad arkaysaa labada qof markay isqabaan waa dad faraxsan sanadka ugu horeeya bashbash iyo barwaaqo iyo reereyn baa lagu jiraayo oo maxaa kugu dhacay halkeed martay haye waan ku sugayaa control ma jiro buuq ma jiro cadaadis ma jiro waxba ma jiro waxaad arkaysaa sanad kadib dadkiiyo isha uftahaysaya iska rahaya maxaad u soo raagtay maxaa kugu dhacay maxaad sidan iiga soo qaadi weyday oo iigu ilowday maxaad cuntada iiga soo qaadi weyday shoppingkayga haw maxay ways anaagayaan dadkii marka waxa wanaagsan dadku intaysan isguursan inay plan dhigtaan maxaan kaa daayaa maxaad jeceshahay seed wax u rabtaa adigu haddaan khaldamo waan ku raaligelin haddaad khaldamto iraaligeli haddaad khalad gasho waa ku cafin nolosha wadaagaynaa dhib iyo dheefaa qaybsanaynaa haygu xadgudbin anagu kuma xadgudbayo xaqa ilaahay baan iska ilaalinaynaa ciyaalkeenaan barbaarinaynaa salaadan tukanaynaa dikrigaan akhrinaynaa nabigaan ku salinaynaa sallallahu alayhi wasallam inta badan waxa weeyaan quraankaan badsanaynaa ciyaalka nolol baan siinaynaa nolosha haddii rafaad iyo wax walba waa wada qaybsamaynaa ila joog dadka intaasaa loogu kari lahay wuu ka helay way isguursadeen way isimaadeen sanadka horeeya wax walba ayaa la isku fududeynayaa sanadka dambe halkeed ku maqaneed maxaa kugu dhacay waxaygaad iga soo ilowday ee ma jeclid shaydaankii baa ka faa'iidaysanaya marka waxa weeyaan midda kale waxa meesha taala qofkii waxaad arkaysaa shalay talo kuu fiicnaa oo wanaagsanaa oo hadalkaaga qadarinayay oo yacni afka daa farid ka geliso aan kaa qaninin qofkii sanad kadib amba 6 bilood kadib qofkiiba maahaba uu isbedelay qofkii waxaa leedahay maxaa khaldan qofkan markii horeba waa ka wanaagsanaaye maxaa khaldan maxaa ku sameeyay adiga waxaa loo baahan yahay inaad ka fikirto qofkan uu ka xiisa dhacay oo su'aasha meesha taala waxa weeyaan Soomaalida waxay ku mamaadaa nin weyn taga laguma yiraahdee wuxuu ku tagaa la tusaa marka qofka xiisa dhacay oo isqabtaan oo ku oranay walaal aan waan ka xiisa dhacay magaalada gal ma jirto nin walaa naagba ma fahanti wuxuu qofku buuq iyo foodo iyo rabish iyo magaranaysa iyo maneeno uu ku cinay waxa soo dhama garanaysa qofku uu ka xiisa dhacay ka dhiganta wallahi rumaydi sheegayaan qof jecel dadka qaar ba koornay jacaylku waa la isdagaalo war qof jecel xagasha xataa ma qoro iska daa buuqe tusaale ahaan baa idin siinaya labada qof markay jacaylkoodu isku cusub yahay ismay laashadan islaaliya halkii tagtay naftaada ilaaliya ma cunteysay telefoonka waa iska caadi kullee kolbad ku helaysaa malen waa iska caadi dhib ma la beeba haddaad iga qabogeeda waa iska caadi waxaas jecel miyayna hayn ma kulkoolinba waxaas jacaylku waa daryeel waa isasiin waa tixgelis waa in la isku xadgudbin jacaylka dhabta dagaal male wallahi ilaahay baan waa ka xaraan jacaylka dhabta dagaal kuma dhex jira meesha waa hay marxaba adiga saxsan haye waa ogolahay markaad kartay soo wax xilligaad kartay soo jawaab ma cunteysay ee ma nabad tagtay saaka seed ku kacday waa wada nabad tan lagu leeyahay wala isdagaalaya waan ka maseeray waa jacayl weeyaan maxaa meesha taala waa iga maseertay ma waxaad iga maseeraysaa joojinayaaba ka war maxay kale qofka kale haduu ilaalinayo qalbigiisa dadku way wada wanaagsanaan lahayn marka waxa weeyaan waxaad arkaysaa wiilkii gabadhiga isqaba yada waxa leedahay isagu ha furinka dalbado isaguna wuxuu leeyahay yada furinka dalbado waxaad arkaysaa labadii qof oo buuq iyo qaylo isku wada isagu habeenkii buu dhacayaa uu soo xil dambe imanaya haduu dan waxaan buu jabinayaa yadii kadalik de wala isanaagaya mugta cuntada ma karinaysa haday rabto gogosho ma hagaajinayso aqalkeen laaqaysa way iska baxaysaa shalmadii qaadinaysa dibadii durduuraysa ma fahanti isaga wuxuu ku soo noqonayay guriga joogin aqalkii waxba la sameyn marka wala isanaagaya marka heerku halka taagan yahay dadku way isnacaan bay ka dhigan tahay ee waxa weeyaan labada qof inuu qofka soo fariisto uu yaaro ku yiraahdo maxaa dhaco maxaa ka khaldan bariyaan way isbedeshay seen wax u saxnaa anigu waan ka raali gelinayaa adigna raali gal bixi sidan xaajiyay amba xaajiyo
nolosheen haddaa saa kusii wadno gurigeenu uu burburaya ee hantashano ha isla wadaagno ha isqabano ha iscaafino ma jirto labadiiba waxaa kala dhacsan labada mid ka mid ah iyada aanba isagu hadduu arrinkaa la yimaado waano hee waraa ku jeceliya way ku jeceshahay qofkani uu ku rabaaba ha tusin jacaylkaaga jexinjexa ha tusin jiljilaa ha tusin jacayl ha tusin iska jabi waa qof aad sariirta wadaagteen oo nolol wadaagteen oo ciyaal idinka dhaxay waxaa ka dhacaysaa iska jabi marka waxaan soconaa zaman aad u daran baan soconaa wallahi ilaahay hanoo gargaaree waxaan soconaa zaman labada qof ee guurka ay wadaageen inaad moodo inay isla baxaan oo isla sheekaysanayaan oo ha u jabin iska ilaali la iska leeyahay wallahi waa cajiib